لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البداية وقبر udhalatay waddanka ruushka ka soo jeeda family cafiifa oo dhoorsan laakiin waxay haystaan diinta orthodoxiska aad ayay diinta ugu adag tahay diinta nasaaradana way ku tacasubtaa maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa u soo bandhigay nin ka mid ah ganacsatada waddanka ruushka in ay la saaxiibto la socoto koox ka mid ah gabdhaha ay aadaan u safraan waddan ka mid ah waddamada khaliijka carabta si ay u soo iibiyaan qalabka korontada dhaliya kadibna ay ugu iibgeeyaan waddanka ruushka kaasi wuxuu ahaa hadaf lisku wada raacsan yahay ninka iyo gabdhahaba laakiin mar alla markay soo gaareen waddan ka mid ah waddamada khaliijka carabta ayuu ninkii wuxuu isu bedelay si kale arrintii gabdhaha ugu soo sheekeeyey maahane qaab kale ayuu doonayay wuxuu doonayay gabdhuhu inay ka ganacsadaan jirkooda gabdhihii wuxuu u ballan qaado u sheegay in uu siinayo hanti iyo maal aad iyo aad u tiro badan xiriirkii asiga ayaga ka dhexeeyana inay aad u weynaan doonaan gabdhihii dhan wuu ku qanciyey laakiin gabadhaani way diiday arrinta ayada ah inay ku qanacdo ama ay samayso wuxuu doonayo ninka waxay ahayd gabadhu mid ku tacasubta oo ku adag diinta nasaarada arrintii way diiday wuu ku qoslay ninkii markaasuu wuxuu ku yidhi haddaba haddaad diidid waddankan ayaa joogtaa waana baadi ayaad ku tahay cidna kama taqaanid wax dhar ah midna ma haysatid waxna ku siimaayo noloshii ayuu ku cariiriyey wuxuuna dejiyey guri aad iyo aad u cariiri badan oo hal qol ah baasboorkii ayuu ka qaaday uuna ka qariyey gabadhii diinta ayay gabadhii cafiifada ahayd dhoorsaneed waxay isku dayday in ay ku qanciso ninkan asiga ah in uu siiyo baasaboorkeeda eena u laabato waddankeedii ay ka soo tagtay ee ruushka ah wuu diiday in uu siiyo maalin maalmaha ka mid ah ayay qolkii ka raadisay baasaboorkii waxay heshay baasaboorkeedii oo meel yaala way soo qaaday wayna soo carartay islamarkiiba waxay soo qaaday highwayga dheer ee ku yaala waddanka wax dhara ma haysato meelay u socoto iyo meel kalena ma taqaano ehelna ma laha dad macaarifa ay taqaanana ma haysato wax hanti na ma laha cuntona ma haysato meel maskan ay degtana ma haysato gabadhii waddadii ayay qabatay dhanka bidix ayay fiirisaa mar walba ayadoo wareersan islamarkii waxay aragtay wiil dhallinyaro ah oo la socdo 3 gabdhood gabadhii way degtay wayna xasishay markay arrintaa aragtay ninkii ayay qaabishay waxayna kula hadashay luqadda ruushka wuu ka cudur daartay wuxuu u sheegay in uusan fahmaynin luqadda ruushka oosan ku hadlaynin waxay tiri ay weydiisay ma ku hadashaa luqadda ingiriiska markaasuu wuxuu yidhi haa waan ku hadlaa luqaddaasi way faraxday wayna oysay markaasi waxay ku tiri aniga waxaan ahay gabar ka timid waddanka ruushka qisadii iyo arrintii ay sababtii halkan u timid ayayna ugu sheekaysay iyo waxa ninkaasi oo la doonayay waxayna u sheegtay
inaysan hanti haysanin maskan iyo meelo degtan aysan haysanin ay doonayso inay u laabato waddankeedii. waxaan kaa doonayaa ayay ku tiri inaad martigelisid 2 maalin iyo 3 maalin ilaa arrimahayga aan iska dawi ribto, aan ehelkaygii walaalahay aan la xiriiro. wiilkii dhallinyarka ahaa oo magaciisa lagu magacaabay Khaalid arrinkii ayuu ka fikiray, wuxuuna u maleeyey inay gabadha khiyaanayso, shirqoolna ay u degayso. arrintii ayuu ka fikiray, gabadhii ayuu sidaa u eegay, misna way oynaysaa. wuxuu la tashtay walaashiisii iyo hooyadiis. ugu dambayntiina Khaalid gabadhii wuxuu u soo waday gurigiisii. gabadhii waxay bilaawday islamarkiiba inay la xiriirayso ehelkeedii, laakiin taleefankii lagama jawaabayo, qadkii waddankii ayaa xun. gabadhii saacad kasta ayay taleefanka ka wacdaa ee ku cela. waxay garteen Khaalid iyo hooyadii iyo walaashiiba gabadhaani inay tahay nasaaro oo haysata diinta kirishtaanka. arrintii ayay u dabagaleen, way u dhimriyeen, way la sheekaysteen ilaa gabadhii ay jeclaatay. markaasi waxay u bandhigeen diinta islaamka. way diiday, si adag ayay u diiday, maxaa yeelay ma doonayn in lagala hadlo mawduuc diin ah aslanba. maxaa yeelay gabadhu waxay ka soo jeedaa qoys orthodoxiska ah oo ku tacasuba diinta nasaaradana aad ugu dhegan, kahanaya nacabna islaamka iyo muslimiinta. Khaalid markiiba wuxuu u cararay markaskii dacwada islaamiga ahaa. wuxuu ka soo qaaday kitaab ay ku qoran tahay luqadda ruushka. gabadhii ayuu u keenay, way akhrisay, arrintiina way ku ta'asurtay. maalmo kadib ayay u soo laabtay Khaalid. wuxuu isku dayey inuu ku qanciyo gabadha inay qaadato islaamka. way islaamtay, islaamkeediina wuu wanaagsanaaday, aad ayay u wanaajisay. waxayna guda gashay inay baranayso tacaaliimta diinta islaamka ah. waxayna ku dadaashay inay mar walba ay la fadhiisanayso gabdhaha saalixaadka ah. waxay ka baqday inay ku laabato waddankeedii ee ka timid ee ruushka ahaa, markaasi ay ka laabato diinta islaamka, ay qaadato diinta nasaarada mar kale. guurkeedii Khaalid ayaa gabadhii guursaday. gabadhu waxay noqotay gabar diinteedii aad iyo aad ugu dhegan, in ka badan sida gabdhaha muslimaadka ee diinta ugu dhegan yihiin. maalmaha ka mid a ayay odageedii Khaalid ahaa waxay u raacday suuqa. markaasi waxay aragtay gabar xijaaban oo xijaab dhammaystiran wadata, wejigana daboolatay, ina shareerhayd u xiran. arrintii way la yaabtay. waa markii ugu horraysay arrintan ay aragto. aad ayay u la yaabtay. gabar noocaana oo ina shareerka xiran oona xijaabkan sidaan u eg wadata. arrintii way la yaabtay qaabkan. markaasay weydiiday ninkeedii Khaalid ahaa ayay waxay ku tiri, waa maxay gabadhan waxa ay wadato? waxaa laga yaabaa ayay tiri in wejigu waxyaabo ugu dhacay, sidaa darteed ay wejigeeda qarisay. Khaalid ayaa markii wuxuu ku yidhi, maya, ma ahan sidaa. gabadhaani waxay haysataa xijaabkii ilaahay oo raalli ka yahay subxaanahu wa tacaala, nabigana oo arrintaa amray. gabadhii waxyar ayay aamustay, misna waxay tiri, haa, nacam, sax weeye, waa xijaabkii islaamiga ahaa, waa xijaabkii ilaahay doonayay, anigana kaas ayaan doonayaa. Khaalid ayaa wuxuu ku yidhi, oo maxaa ku ogeysiiyey inuu kan yahay xijaabka? markaasi waxay tiri, idan haddaba ina kaxay ina geli masjarka ama meesha dukaanka waxa lagu iibinayo, aan soo iibsano dharkan asiga ahaa. waxaan doonayaa bay tiri dharkan gabadhan ay wadato in aan qaato, indhahana xirto, waayo wejigeygii waxaan doonayaa inuu arko ninkeyga oo keliya, cid kale ee haddaba suuqan ka tegi maayo ama bixi maayo ilaa xijaabkan oo kale anoo wata maahine. haddaba xaggeen ka iibsanaa ayay ku tiri odageedii Khaalid ahaa. Khaalid ayuu wuxuu ku yidhi, iska hayso xijaabkan hadda adiga haysatid, sida hooyaday iyo aabahay iyo walaashay oo kale. markaasi wuxuu ku tiri, maya, bal waxaan doonayaa xijaabkii ilaahay oo doonayo oona raalli igaga noqonayo
ayaan doonayaa. ficlan way qaadatay. maalmo kadib gabadhii markay ka soo wareegatay u siyaadi maayo ilaa iimaan maahine iyo jacayl ay u qabto islaamka iyo allah subxaanahu wa tacaala ilaa ay hanatay qalbiga ninkeedii iyo dareemihiisii oo dhan. maalin maalmaha ka mid ahaa ayay waxay sidaa u eegtay baasaboorkeedii, misna waxay aragtay inuu dhici rabo ee laga maarmaan ay tahay inay cusboonaysiiso. arrintana aad ayay u adag tahay, waayo waxaa laabudda ah inay u safarto magaaladii gabadha ay ka timid ee asal ahaana ay ka soo jeedo ee ku taala waddanka ruushka. idan haddaba qofka markuus waxaa laga maarmaan ah in xagga ruushka ay u safraan. joogitaankooda halkan ay joogaanne wuxuu noqon doonaa mid khayru nidaami ah haddaysan baasboorka cusboonaysiisan. waxay go'aansadeen ayadii khaalidba inay u safraan waddanka ruushka, waayo gabadha ma doonaynin inay keligii safarto muxrim la'aan. haddaba waxay fuuleen diyaaraddii ee u socotay waddanka ruushka. gabadha diyaaradda waxay ku raacday xijaabkeedii dhammaystirnaa ee ay wadatay. waxay fadhiisatay ninkeedii dhinaciisii ayay sidaa u fadhiisatay ayadoo cizo iyo sharaf ka muuqato. khaalid ayaa wuxuu ku yidhi, waxaan ka baqayaa qaabkan adiga aad ku saaran tahay diyaaradda dharkan xijaabka wadato oo aad u dhammaystiran inuu dhibaato naga soo gaarayo ayaan ka baqayaa ayuu ku yidhi khaalid. markaasi waxay tidhi, subxaana allah, ma waxaad doonaysaa in aan kuwaan gaalada adeecno allah lana caasino? wallaahi arrintaa ma samaynayo. wax allaa waxay doonaan ha sameeyaan, hana ku hadlaan. dadkii waxay guda galeen inay soo eegayaan gabadhii. kuwii meesha ka dhex shaqaynaya diyaaradda ee raashinkii cuntooyinka qaybinayay ayaa iyagana waxay bilaabeen inay howlahoodii qabsanayaan, cuntooyinkii ay qaybinayaan. cuntooyinkana waxaa ku jira khamro iyo hilibka doonfaarka iyo waxyaabo badan ee islaamka mamnuuc ka tahay inay cunaan ama ay u dhowaadaan. xaggaana waxaa ka soo muuqday alfaad ama erayo aad u kulul badan oo gabadha loo jeedinayo. midkan indhaha ayuu ku soo gubayaa, kaa wuu ku qoslayaa, kana wuu ku jeesjeesayaa. agteeda ayay soo istaagayaan, gabadhii ayay isku dhadhajinayaan. khaalid arrinkii wuu eegayaa, mana fahmayo waxa lagu hadlayo. amaa gabadha miya ayadu way qoslaysaa, wayna dhoola cadaynaysaa, wayna u tarjuntay odageedii khaalid ahaa waxa ay leeyihiin. misna khaalid aad buu u carooday. markaasi wuxuu ku tiri, khaalidow ha carooni walaal, xabadkaadana cidhiiri ha gelinin. arrinka wuu isku fudud yahay marka loo fiiriyo gabdhaha saxaabiyaadka ah waxa ku dhacay iyo kuwa taabiciyaadka ah oo dhibaato iyo imtixaan iyo bala soo maray. waxa qabsaday markii loo fiiriyo annaga tiidan hadeertaani aad ayay u fududahay ayay ku tiri, ilaa diyaaraddu ay ka gaarto waddanka ruushka. markii la tegay khaalid wuxuu yidhi, mar alla markaan ka degnay eelaboorka waxaan u malaynayay in aan si toosaan u tegayno gabadha guriga ehelkeeda oo xaggaasi aan joogayno ilaa arrimaheennii aan soo dhammaysanayno. laakiin gabadha aragtideedu aad ayuu u dheeraa. markaasi wuxuu igu tiri, anuu ehelkayga waa ortodokiska weeyaan, diintana aad ayay ugu dhegan yihiin. haddaba ma doonayo inaan aadno ayaga raysanayna qol, xaggaasi ayaan joogaynaa ilaa arrimaheennii iyo waxaan u soo baxnay oo aan dhammaysanno. markaan safri rabna waxyar ka hor ayaan soo booqanaynaa ayay igu tiri ehelkeennii. arrinkii waxaan u arkay buu yidhi khaalid mid sawaab ah oo saxsan. qol ayaan kiraysanay, habeenkii xagga ayaan seexannay. subaxdii ayaan waxaan u kalahnay meeshii idaaraddii baasaboorada ama meesha baasboorada lagu samaynayo. waxaan u galnay kii shaqaalihii meesha joogay, waxaana ka codsanay inuu baasboorka noo cusboonaysiiyo.
markaasuu wuxuu ina weydiiyey baasboorkii hore iyo suuradda gabadha in aan siino. waan u soo bixiyey suuraddaydii black and white-ka ahaa oo aan muuqanin ilaa wejigaygii maahine. markaasuu wuxuu yidhi ninka meesha ka shaqaynayay, sawirkaani wuxuu khilaafsan yahay nidaamkii sharciga noo degan ee waxaan doonayaa sawir muujinaya wejigaada, tintaada iyo qoortaada oo dhammaystiran. gabadhii way diiday in ay siiso sawirkeedii oo arrintaa ah. waxaan u tagnay shaqaalihii labaad, misna sidii ayuu nagu yidhi. waan ka tagnay kan saddexaad ayaan u tagnay, ayagoo dhanna waxay codsanayaan sawirka gabadha oo qaawan. xaaskaygana ma doonayso inay arrintaas siiso. waxay leedahay suurtagal ma aha in aan siiyo anoo qaawan abadan. raggii shaqaalahana way diideen inay aqbalaan dalabkeedii. kadibna waxaan aadnay ninka meesha maamulo oo dhan. xaaskaygii waxay isku dayday buu leeyahay Khaalid inay ku qanciso suuraddan ayada ah. ayadana way diidan tahay buu yidhi in ay siiso sawirkeedii oo dhammaystiran, oo tinteedii, qoorteedii iyo wejigeedii oo bannaanka yaalo. xaaskaygana way ku qancinaysaa inay kan siiso. ay leedahay miyaadan raalli ku ahayn suuraddaydan saxda oo xaqiiqa inaad qaadataan oo aad isku han wejigaygii. muhiim ma ahan inaad aragtaan tinteedii oo dhan. tintana way bedelmi kartaa, wax walbana way bedelmi karaan, laakiin isku eeg ayay ku tiri wejigaygii iyo sawirkan aan sito. mudiirka wuxuu yidhi arrintan ayada ah waxay khilaafsan tahay nidaamka u degan waddanka, suurtagalna ma aha in aan aqbalo. xaaskaygii ayay waxay ku tiri haddaba anigu idin sii maayo sawirkan maahina mid kale idinma haayee ee maxaa xal ah. ninka mudiirka iyo wuxuu ku yidhi marka anigu xal kuma haayo, jaanisna kuma haayo, laakiin hal arrin ayaan kuu tilmaamayaa. waxaad aadaysaa magaalada Moscow. xaggaa waxaa ku yaala migration-ka ugu weyn ee waddanka ee baasaboorada laga samaysto. xaggaa tag, ayaga marka u sheeg ayuu ku yidhi. Khaalid ayuu wuxuu yidhi xaaskaygii sidaa ayay ii soo eegtay. markaasi waxay igu tiri haddaba Khaalidow waxaan u safreynaa xagga iyo magaalada Moscow. markaasaa waxuu yidhi haadhe walaalay, iska sii sawirka ay doonayaan. ilaahay nafta ma kalifin ilaa waxay awoodo maahine ee fattaqu llaha ma statactum. hadda arrintaani waa daruuro weeyaan. baasboorkaadana arki maaya ilaa shakhsiyaad oo keli maahine ee markii loo baahdo ayay arkayaan. kadibna gurigaada ayaad ku qarsanaysaa ilaa muddada ay ka dhammaanayso. ee iska daa mashaakilka iyo dhibaatada aad wadato, mana u baahnin inaan u safarno xagga iyo magaalada Moscow. gabadhii ayaa waxay ku tiri maya suurtagal ma aha in aan siiyo sawirkeediiyo qaawan kadib markaan gartay Allah iyo diinta islaamka. waxaan u safarnay Moscow. markaan tagnay ayaan kiraysanay guri, waan degnay. subaxdii ayaan ka lahnay, waxaan aadnay ilaa idaarati aljawaasaat, meel idaarada ama maamulka baasaboorada. waxaan u galnay shaqaalihii koowaad. masna xaaladda waa sidii buu naga codsanayaa. haddana waxaan u galnay shaqaalihii labaad, kii saddexaadna waan u galnay ilaa ugu dambayntii aan u tagno ninka meesha haysto ee wax oo dhan u taliyo. waan u galnay. nin wuxuu ahaa aad iyo aad u adag, qaabna daran, foolxumo badan, nin xunna ah, aan akhlaaqii midna aan lahayn. markuu arkay baasaboorkii ayuu qaaday, sidaa ayuu u gedgediyey. misna madaxiisii ayuu kor u soo qaaday oo saan u eegay xaaskaygii. markaasuu wuxuu ku yidhi yaa xaqiijinaya inaad adiga tahay gabadha sawirkaani. wuxuu doonayey inuu wejigeedii arko. markaasi waxay ku tiri
gabdho ka mid ah gabdhaha adiga kuu shaqeeyo u yeer oo adiga gacanyarahaada ah ha arkaan wejigeygii iyo sawirkan ayaga ayaa kuu sheegaya ama adiga wejigeygii arki maysid ayay ku tiri ninkii wuu xanaaqay wuxuu ka qaaday baasaboorkii hore iyo sawirkeedii ayuu ka qaaday wuxuu ku tuurtay qaanadiisii ayuu sidaa u gashtay markaasuu gabadhii wuxuu ku yidhi kuma hayo baasaboor hore walaa mid dambena kuma hayo ilaa aad sawirkaado dhammaystiran aad keentid xaaskaygii waxay guda gashay inay la hadlayso ninka isku dayayso inay ku qanciso waxay ku hadlayaan luqadda ruushka anigana waan eegayaa hadalkooda waxna ka fahmi maayo laakiin waa carooday aad ayaa u xanaaqay wax aan samayn karana ma laha asiga wuu ku celcelinayaa in ay sawirkeedii dhammaystiran keento shuruudda laga baahan yahayna ay soo buuxido ayadana waxay isku dayaysaa inay ku qancido arrinta laakiin laa faa'idata wax faa'iida ma laha ayay aamustay way istaagtay aniga ayay saa ii soo eegtay markaasaan qabtay gacanteedii ayaa waxaan ku idhi yaa casiizatii laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa naf ilaahay ma kalifin ilaa waxay awoodo maahina annagana haddeertaan dhibaato ayaan ku jirnaa goormay ayaan ka tegaynaa xafiiska baasaboorada haddii maantao dhan aan isqabqabsanno hadal iyo hadal sheekada ay marayso markaasi wuxuu ku tiri waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuquhu min xaysu laa yaxtasib niqaashkii iyo doodii anigii ayada inaga dhexeeyey aad ayuu usii adkaa wuu carooday ninka mudiirka ah oo baasaboorada meesheeda gacanta ku hayo wuu naga ceeriyey xafiiskii iyo maktabkii waxaan u baxnay bannaanka annagoo tilaabada jiideyno marna waan u naxariisanayaa ayadu ilaan waa xaaskeygii marna waan u caroonayaa waxa ay samaysay darteed waan baxnay waan sii soconnay annagoo arrinta ka munaaqashanayno ka wada hadlayno ilaa qolkii aan ka tagno anigu waxaan isku dayayaa inaan ku qanciyo in ay arrinta fududayso ayadana waxay isku dayaysaa inay igu qanciso in aysan siinin sawiradeedii oo qaaban ilaa habeenkii laga gaaray salaada cishaha ayaan tukannay anigana mashquulal baal ayaan iska ahay dhibadaa nagu dhacday darteed iyo xaaladeena siday u cakiran tahay in yar ayaan cunnay waxaan isku diyaariyey kadibna in aan seexdo markay aragtay xaaladayda iyo sida aniga ahay ayay saan ii soo eegtay markaasay waxay igu tiri khaalid miyaad seexanaysaa markaasaa waxaan ku idhi haa waan seexanayaa miyaadan dareemin daal ayaan ku idhi markaasay waxay igu tiri subxaana allah mawqifkan adag anigoo ku jirno miyaad seexanaysaa waxaan u baahanahay ilaahay inaan magan galno mawqifkan inaan allah ka magan galno ayaan u baahanahay ilaahayna aan weydiisano waqtigan waqti la seexda ma ahan ee waqti allah la magan galo ee istaag tuka ayay igu tiri waan istaagay waan tugtay intoo alla doono in aan tugto kadibna waan seexday ama ayada miyaa way taagan tahay salaad ayay ku jirtaa mar alla markaan soo kaco waxaan arkaa ayadoo rukuucsan waxaan arkaa ayadoo sujuudsan waxaan arkaa ayadoo taagan waxaan arkaa ayadoo ducaynayso waxaan arkaa ayadoo oynayso ilaa waaga oo ka bariyo markuu waaga bariyey ayay hurdada iga kicisay ayay wixii igu tiray waqtigii salaada subax wuu galay istaag waan istaagay waan soo weysaystay waana cadiyeystay waan tukannay kadibna waan seexannay ilaa ay soo baxdo markaas ayay soo kacday ayay waxay igu tiri qaalidow inakeen waxaan aadaynaa xaggii dhankii idaaratul jawaasaadka ama maamulkii baasaboorada markaasaa waxaan ku idhi oo maxaan ka doonaynaa xaggaas xujideena ula tegaynaa baasaboorna ma haysatid wax sawirana ma haysatid aficlam yaan xaggaa ku aadnaa markaasay waxay igu tiri nakeen waan tegaynaa
waan isku dayeynaa ha ka quusanin naxariista allah waan tagnay anigoo madaxa hoos u lulayo saantana aan jiideyno ilaa aan ka tagno maktabkii mar allah markaas saan aan u tagnay xafiisyada ama maktabka ugu horay iridii markaa maraynay ayay arkeen xaaskeygii qaabkeedii shakligeedii ayay dareem inay ayadii tahay markaa waxaa u dhawaaqay oo meel fog ka soo dhawaaqay nin ka mid ahaa shaqaalayaashii markaasuu wuxuu adigu heblaayo miyaa tahay markaasuu wuxuu tidhi haa anigu heblaayo ayaan ahay markaasuu wuxuu ku yidhi hoo qaado baasaboorkaadii wuu kuu dhammaystiran yahay xijaabkii yacni sawirkii ay wadatay ayaa looguna dhejiyey way bishaaraysatay aniga ayay sidaa ii soo eegtay markaasi wuxuu igu tiri miyaanan kuugu oranin waman yattaqi allaha yajcal lahu makhraja qofkii allah ka baqa allah wuxuu u samaynayaa makhraj iyo meeloo kaga baxsado dhibaatooyinka haysata mar allah markaan doonay inaan baxno inaan dhaqaaqna aan doonnay ayuu wuxuu ku yidhi ninkii meesha ka shaqaynayay waxaa laga maarmaan ah inaad ku laabato magaaladii aad ka timaadeen oo aad baasboorkii horena aad geysaan waxaan ku laabanay magaaladii aan ka nimid aniga nafteeda waxaan ku leeyahay hadda waxaa la gaaray xilli fursadii aanu soo booqan lahayn gabadha eheladeedii inta aanun safrin aan ku laabanin waddanka khaliijka magaaladii ayaan gaarnay qol ayaan kiraysanay baasaboorkii ayaan meel ku xaraysanay waxay isku dayeen in ay booqdaan ehelkoodii rixlatul cadaab safarkii cadaabka waan baxnay waan dhaqaaqnay aan u booqanno ehelkii gabadha iridii ayaanu garaacnay iridii gurigan wuxuu u muuqdaa ayuu yidhi khaalid guryihii hore ayuu u muuqdaa qaab ahaantiisana waxaa ka muuqata guri ay degan yihiin dad fuqaro ah iridii waxaa furay walaalkeedii ka weynaa wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo xoog leh oo aad adag buu ahaa gabadhii aad ayay u faraxday markay walaalkeedii aragtay wejigii ayay iska feediyeen shareerkii ugu xirnaa way dhola cadaysay wayna soo dhowaysay ama asiga miyaa wuu taagan yahay wejigeedii ayuu saan u fiirinayaa ninka iskugu darsantay farax oo la faraxsan yahay walaashiisii oo soo laabatay ayadoo bad qabta iyo yaab oo la yaaban yahay iyo amakaag oo ka qaaday dharka madmadow ee ay wadato ee dhammaanteeda qabku ah xaaskeygii way gashay gurigii ayadoo dhoola cadaynayso walaalkeediina way mucaanaqaysay hab ayay siisay xawadka ayay ku qaaday anigana waan ka dabagalay ayuu yidhi khaalid waxaan fadhiistay qolkii fadhiga ayadana waxaan fadhiistay anigu keligay ah qolka fadhiga ayadana way fadhiisatay markaa kadib ayay ayada gurigii hore u sii gashay waxaan maqlayaa inay ku hadlayaan luqadda ruushka waxna ka fahmi maayo waan u guurgaday arrintii codkii aad ayuu u kacayaa saacada ka dambaysana codkii wuu sii siyaadayaa ilaa cod aad u qaab dagaaloo kale aan maqlayo iyo qaylo iyo sabaxan ayagoo dhanna way ku qeylinayaan ayadana way iska difaacaysaa hadalkiina aad ayuu igu soo dhowaaday waxaan dareemayaa nooc shar ka mid ah laakiin hase yeeshee wax aan awoodo oo aan samayn karo midna ma laha waxna ma goyi karo waayo madad caadi iska sheekaysanayaba mise waa dagaal sheekadu waayo waxay ku hadlayaan waa luqadda ruushka weeye waxna ka fahmi maayo ayuu yidhi khaalid isla markiiba sidkadiis ayaa waxay codkii wuxuu igu soo dhowaanayaa qolkii aniga aan ku jiray isla markiina 3 nin oo xoog badan soo galay oo hogaaminayo nin garmadow ah way ii soo galeen waxaan u malaynayay in ay ii soo dhaweynayaan maadaama aan gabadhoodii qabo isla markiina way ii soo weerareen sidii dugaag oo kale ah soo dhaweyntii aan ka sugayna waxay ugu bedeleen feer iyo garaac
iyo haraanti ayay igu bedeleen. waxaan guda galay inaan iska difaacaya, waan qeeliyey, waxaan ku dhawaaqay erey ah ii gargaar ayaan ku dhawaaqay, ilaa awooddeedii ay daciiftay oo aan dareemay noloshaydii ugu dambaysay inay gurigaani ay tahay ay nafta iga qaadayaan sida ay ii dilayaan. ayagana mar walbana feer iyo haraanti ayay igu darayaan. markaasaa waxaan fiirfiiray iridii aan ka soo galay dhankay iga xigto saan u cararo. mar alla markaan iridii arkay ayaan si degdeg u istaagay, iridii ayaan iska furay, waan cararay, ayagana way iga soo daba carareen ilaa aan ka dhex galay dad badan oo meel joogo oo xaggaa kaga dhuuntay. say ii raadinayeen ayay ii waayeen. kadibna anigana waxaan iska aaday xaggii gurigana qolkan kiraysana kama fogeen gabadha gurigeedii. dhiiggii ayaan iska dhaqay, wejigaygii iyo afkaygii iyo sankeygii oo dhanba waa wada dhiig miiran ayay noqdeen. say ii garaacayeen oo keliya. ilaah ayaa ku mahdi subxaanahu wa tacaala oo iga soo badbaadiyey dadkan wuxuushta ah. laakiin waxaan leeyahay anigu waan soo badbaaday, laakiin xaaskaygii xaaladeedii xagguu ku dambeeyaa. sawirkeedii ayaan soo qaatay, horteeda ayaan dhigtay, sidaa ayaan u eegayaa. waxaan leeyahay suurtagal ma tahay in ay soo badbaado gabadha feerkan iyo dilkan? aniga ragga ah oon la xanuunsaday, oon la dhacay, oon la tawarbeelay, sidee ayada ugu dulqaadan kartaa ayadoo qof dumar ah? waxaan ka baqay gabadha say u dilayaan inay nafta ka baxdo. isla markii shayddaanba wuxuu isku dayey inuu waswaas i geliyo oo igu yidhaahdo hadda gabadhaasi diinteeda way ka laabanaysaa, dilayaan ay u ciqaabayaan ayay diinteeda ka laaban doontaa, adna waddankaada ayaad ku laabanaysaa adoo keligaada ah. waan joogay anoo wareersan, wax aan sameeyo aan garan la, waddankan xaaladiisan aana garanaynin, xaggeen aadaya, saan u dhaqmaa, waddankaani joogitaankiisa naftana aad bay raqiis u tahay, si fudud ayaa lagugu dilayaa. waxaa suurtagal ah in lagu soo koraysto nin oo la siiyo $10 ah ay ku dilaan, ama ayadu inay cadaabka markay ka badan ee si ay u cadaawayaan ay adigu ku soo tilmaanto booskaada iyo meeshaa joogtana la ogaado ee xaggaa kugu yimaadaan ay ku dilaan. qolkeygii ayaan baaqi ku noqday anoo fajacsan, argagaxsan, ilaa waaga ka bariyo. subaxdii markii waagi markuu bariyey ayaan dharkaygii bedeshtay, waan baxay anoo xaaladda u dhabagelayo iyo sida gabadha ku dambaysay xaaladeedii meel fogna guriga ka eeg. anoo xaaladdaa ku sugan ayaa albaabkii xirnaa si kadis ah loo furay, misna waxaa ka soo baxay 3 nin oo aniga i garaacay ayagoo aad u libisan ee u socdeen shaqooyinkoodii. iridana way soo xireen. xagga ayaan baaqi ku ahaaday anoo meel fog ka eegaya xaaskayga xaaladeedii iyo say noqon doonto. waxaan tamaninayay wejigeedii arki doono, laakiin faa'iida ma laha. xaaladaasi ayaan ku sugnaaday ilaa muddo dhowr saacadood ah, ilaa raggii ay soo laabteen, shaqooyinkii iyo holahoodii ay soo dhammaysteen, ay gurigii ku soo laabteen. anigana waan iska soo baxay, waan iska soo laabtay, waxaan ku soo laabtay qolkeygii. maalintii labaad ayaa haddana baxay anoo arrintii u dhabagalayo, xaaskaygii ma aan arkin. maalintii 3aadna waan baxay, laakiin waan ka quustay nolosheedii. haddana waxaan iska dhaadhiciyey oo aan is yidhi malaa hadday dhiman lahayd waxaad arki lahayd, yacni ayadoo loo tacsiyeynayo oo gurigii dadna u tacsiyeynayaan oo soo booqanaya ayaad arki lahayd, laakiin cidna ma aan arkin oo u tacsiyeynayso. waxaan iska dhaadhiciyey way nooshahay weli, kulinkiinana wuu dhow yahay, mar dhowna waad kulmaysaan in shaa allah. maalintii afaraad ma aana sabri karin, ma aana dulqaadan karin in aan sii fadhiyo qolkeygii
waan baxay ana u dhabagelaya arrinteedii gurigana meel fog ka eegaya mar alla markay soo baxeen dhalinyartii ee shaqadii u soo oo odaygii aabahood ahaana la socday sida caadada ahayd ayaa meel fog ka eegay misna iridii ayaa si degdega loo furay misna xaaskeedii wejigeedii ayaan ka arkay meel fog ah misna waan fiiriyey xaggii midig iyo dhinac ayaan fiiriyey si fiican ayaan u eegay misna waa ayadiiba oo wejigeedii dhan guduud ayay midabkeedii isbedelay oo dhan ayada dhan tabar darnaatay labiskeediina dhiig ay ka daadanayaan mandarkeedii qaabkeedii markaan arkay aad ayaan ugu argagaxay waana u naxariistay waana u dhowaaday anoo degdeg ah oo ordaya saa ayay ii soo eegtay misna dhiig ayaa wejigeedii dhan ka daadanaya iyo lugaheedii iyo gacmaheed silsilad aad u adagna way ku xirxiran tahay markaan u soo dhowaaday hoosta aan ka soo galay dharkeedoo dhanna dhiig ayaa ku malaxaasan markaasay waxay igu tiri khaalid i dhagayso hawalwelin aniga waxaan ku suganahay cahdigii wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huu waxa aniga aan la kulmay haddii loo fiiriyo waxay gabdhaha saxaabiyaadka la kulmeen iyo ambiyada iyo mursaliinta waxba ma aha hal arrin ayaan kaa codsanayaa khaalid ha soo dhexgelin aniga iyo ehelkayga bax degah ku bax qolkana igu sug ilaa aniga aan kaaga imaado ducadana badi salaatu leelkana badi qur'aan akhriskana badi ha ilaawin arrinta ayada ah waan soo baxay buu yidhi khaalid waa iska soo tegey anoo arrintii murug la gogo'aya ciyilkana iga batay ayaan baaqi ku noqday qolkeygii maalin dhammaystiran anuu sugaya inay ayada ii imaato maalin kale ayaa soo martay maalintii saddexaad ayaa la gaaray weli xaaladii waa sidii mar allah markuu haweenkii la gaaray ee haweenkii mugdiyoowey oo haweenkii kale barkii markii la gaaray ayaa iridda qof soo garaacay waan argagaxay waxaan idhi yaaway qofka iridda soo garaacaya cabsi daran ayaa i asiibtay waa haweenkii kale barka weeyaan waxaan is dhahay oo iska dhaadhiciyey malaha waa ehelkeedii oo soo ogaaday meesha aad joogto haddana waxaan is idhi waxaa laga yaabaa inay xaaskaadii ay tahay waxaan dareemay rucbi geeri ayaan dareemay anii geeridana nooma dhexaynin ilaa waxyar maahine waan istaagay si tartiib ayaan u istaagay anoo leh manilbaab wa kuma qofka irida taagan misna cod aad u jilacsan oo degan ayaa ligula hadlay oo ay idhahayso fur waa anigii qolkii leerkii ayaan daaray iridii ayaan furay way soo gashay ayadoo xaaladeedii isbedelay jirkeedii dhanna eber noqday baaba'ay markaasi waxay igu tiri si degdeg ah nakeen waan baxaynaa markaasaa waxaan ku yidhi xaaladan miyaan ku baxaynaa markaasi waxay igu tiri haa isla markiina waxay bilowday inay aruurinayso jamcinayso dharkaygii ay aruurinayso boorsadana ku xaraynayso dharkii ay wadatay xijaabkii iyo nishareerkii ayay siibtay waxay gashatay cabaayad madow ayay libisatay waxalla wixii meesha noo yaalina waan qal isla markiiba waan baxnay waxaan karaysanay taxi gabadhii gaarigii ayutay ayadoo daalan acdaab iyo rafaadna ka muuqda ayay kursigii gaariga sidaa iskugu tuurtay markaasaa ninkii waxaan ku idhi gaariga watay oo tagsiilaha ahaa ina gey eleboorka intaa uun baan ka garanayay luqada ruushka markaasi xaaskaygii waxay igu tiri maya aadi mayno eleboorka aadi mayno ayay igu tiri waxaan aadaynaa magaalo heblaay markaasaa waxaan ku idhi waayo sabab miyaanan cararayna anagu
markaasay igu tiri haa sax way tahay laakiin haddii ehelkayga ogaadaan in aniga soo baxsaday meesha ugu horeyso ay igu soo eegayaan waa eelaboorka laakiin waxaan aadaynaa tuulo heblaayo markaan gaarnay tuuladii ayaan ka degnay haddana gaari kale ayaan qaadanay waxaan aadnay tuulo kale halkaa tuuladaasi waxaa ku yaala eelboor aad iyo aad u weyn oo caalami ah markaan eelboorkii gaarnay oo waddankeenii inaan u laawano aan go'aansanay ayaa guri eelboor agtiisa ku yaalo ayaan kiraysanay xaggaasi ayaan joognay waxaan dareenay amni iyo nabadgeli gaxaaskaygii dharkii cabaayadii ayay iska beddeshay waxay xiratay dharkeedii qisatu rucb qisadii argagaxa laheed waxaan weydiiyey xaaskaygii wax alla waxaa ku dhacay oo dhibaato ah iyo sidii u ciqaabeen ayaan weydiiyey markaasay waxay igu tiray mar allaa markaan galnay gurigii aan ehelkaygii aan la fadhiisto ayay waxay igu yidhaahdeen dharkan aad wadato waa maxay markaasaan waxaan ku idhi waa dharkii islaamka weeyaan waxay igu yidhaahdeen oo ninka kula socday muxuu yahay markaasaan ku idhi waa xaaskaygii markaan islaami ayuu i guursaday waa nin muslim ah markaasi waxay igu yidhahdeen suurtagal ma aha markaasaan waxaan ku idhi i dhegaysta haddaba aan idinka sheekeeyo sababtaan ku islaamay iyo sida aan ninkaani aan ku guursaday qisadii ayaan ugu sheekeeyey ninka halkaa naga kaxeeyey inoo been inaga kaxeeyey oo ganacsi waxaas inoo kaxaynin laakiin doonayay in aan jirkeenii ka ganacsano arrintii markaan ka diiday oo aan ka soo cararay oo adiga aad ku soo magan galay oo kadibnaas ii soo dhowaysay ayaan sidaa ku islaamay xaaladaas ayaan ugu sheekeeyey ayay ku tiri markaasay wuxuu ugu yidhaahdeen in aad noqoto gabdhaha jirkooda ka ganacsado ayaa agteeni ka fadli badnaa in aad noqoto gawar islaam ah ood noo timaado adoo muslim jeclaan lahayn adoo jirkaada inaad ka ganacsato markaasi waxay ugu yidhaahdeen haddaba gurigaani ka tegi maysid bixi maysid ilaa adoo ordakis amahine ama adoo meyd ah guriga inaad ka baxdo isla markiiba way ii qabteen si garbaduub ayay ii xireen kadib bay adigu ku yimaadeen ay ku garaaceen codkaada waan maqlayey hadalkaadana waan maqlayey i gargaar markaad dhahaysana waan maqlayey laakiin anigu waan xirnaa waxna kumaan qaba karin mar allaa markaa adigu baxsatoo carartay ayay walaalahii aniga ii soo laabteen ayay ii caayeen si xunna way ii galeen way ii garaaceen karbaash iyo ulul iyo budna way ila dhaceen maalin walba waxay i garaacayeen ay garaaca iyo ushu ay ugu bilaawayeen salaada casir kadib ilaa xilliga hurdada laga gaaro habeenkii oo la kala seexanayo subaxdiina way baxayeen walaalahay aabahay shaqada ayay aadayeen hooyadii ayaa gurigu joogtay iyo gabar yaroo ila dhalatay walaashay ah oo 15 jir ahayd way ii imaanaysay gabadha ayada ah way igu qoslaysay xaaladdeeda iyo xaaladda aniga aan ku suganahay xaaladaas gabadha ay imaanaysana waa xilligii raaxadeydii waa waqtigii nasanayay weeye waa intii walaalo ay iga maqan yihiin oo aniga oo aan raaxaysanayay ayay ahayd markaasi waxay ku tiri khaalidow miyaad rumaysanaysaa anigu hurdadayda waxay ahayd marse ii garaacayeen ayaan miir daboolmayaa intaas oo aan miir daboolsanahay ayaan seexanayaa inta kalena waan soo jeedaa waxay iga codsanayeen inaan diinta islaamka ka laabto anigana waan diidayey waana ku sabrayay dhibaatada iyo ciqaabka ay igu hayaan gabadhii yareed ayaa waxay guda gashay inay ii weydiinayso sababta aan uga tagay diinteyda diinta hooyo iyo diinta awoowe markaas anina waxaan isku dayey inaan arrintii ku qanciyo una cadeeyo diinta una waadixiyo tawxiidka gabadhii waxay guda gashay inay ku qanciso arrinta ayada ah waxayna bilowday
inay ku ta'asuraysa islaamka eena jeclaatay inay islaamka qaadato sikadiis ayuu wuxuu ugu jiray abaayo adiga xaq ayaad ku taagan tahay diintaad haysatana waa diintii saxda ahaa waa diinta oo anigana doonayo inaan qaato oo aan laasimo weliba ayay igu jiray gabadhii yareed markaasi wixii ii raacisay igu jiray haddaba waan ku saacidayaa markaasaa waxaan ku yidhi haddaba haddaad i saacidayso ii ogolaaw inaan ninkaygii qaabilo oo aan arko ayaan ku idhi markaasaa sifaadka iyo tilmaantaada ayaan siiyey meel fog ayay kaa fiirinaysay ayayna kaa arkaysay mar alla markay ku aragtay ayuu wuxuu igu jiray waxaan arkayaa ninkii aad ii tilmaantay ee sifadiisa nooca iyo nooca ahayd kadib baan waxaan ku idhi haa waa asigii mar alla markaan ku arkayna adiga tahay ayaan iridii furay markaas ayaan kula hadlay hadalladii iyo dardaarankii ayaan kugula hadlay laakiin maana soo bixi karin ma awoodin inaan soo baxo waayo maxaa yeelay waan xirxirnaa furihiina walaalkay ayaa haystay silsiladaan ku xirnaane furaheedii walaashay ayaa haysay taasna waxaa lagu talagalay oo keliya inaan markaa musqul aan u baahdo aan musqushii aan ku aado mar alla markaan kula hadlay oo aan kaa codsaday inaan baaqi ku noqoto guriga ilaa adiga aan ku imaado anina markaa waa xirxirnaa waxaan guda galay walaashay inaan ku qanciyo islaamkii way islaamtay waxayna doontay inay tadxiyato tadxiyada iyo dhibka iyo rafaadka hadda aniga aan marayo mid ka daran in ay marto ayay go'aansatay ayay doontay waxayna go'aansatay inay aniga ii soo bixiso oo aan soo fagto laakiin furihii walaal ayaa gacantiisa ugu jirtaa arrintii way ku dadaashay waxayna samaysay khamro aad iyo aad u adag ayay samaysay way cabsiisay mar alla markay caween ee ay sarqaameen si dhammaystiran ay u sarqaameen ayay si tartiibo aayar ahaa furihii jaabkiisii ka soo bixisay markaasay iga furtay markay iga furtay silsiladihii ayaan ku imid adigu haweensaq dhaxa markay ahayd markaasaa waxaan ku yidhi buu yidhi khaalid haddaba walaashaa xaalkeeda ka waran ayadoo xaalkeedii xagguu ku dambeeyaa markaasi waxay tidhi gabadhii arrintaasi ima haminayso murugna igama hayso waxaan ka codsaday in aysan muujanin isla ay qarido ilaa arrinkeedii aniga aan ka soo fikirno oo aan soo bixino xagga aan ka soo wadno haweenkii xagga ayaan seexan ayuu yidhi khaalid subaxdii ayaan waxaan u laabanay waddankeenii mar alla markii waddankii aan nimid ee khaliijka ahaa ayaan xaaskaygii waxaan u waday isbitaalka xaggaasi ayaan maalmo la joogay anuu ka daaweynaya dhaawicii iyo dhibaatooyinkii ka soo gaaray cadaabka haddan anigana maanteeto waxaana u ducaynaynaa ayuu yidhi gabadhii walaasheed ahayd ee soo islaamtay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sugo diinta islaamka walaasha qaaliyadahay ee hadalkayga hadda dhegaysanaysaay uguma talagelin qisada tani inaan kiciyo dareenkaadii uguma talagelin inaan oohina kaa kicin uguma talagelin dareennadaada iyo mashaacirtaada oo dhanna inaan kiciyo laakiin waxaan ugu talagalay inaan baranno dadka geesiyaasha ee diinta u soo maray u soona dhibtooday una soona tadxiyooday diintaa darteeda dhib iyo rafaadna u soo maray gaajana u soo maray dhiigoodina u daadiyey jirkoodana loo googooracay shalay markii abujahal iyo umaya ay cadaawayaan bilaal iyo sumaya gaalada maantana kamaysan zuulin inay cadaawayaan muslimiinta diinta islaamka qaadatay iyo dadka mu'miniinta ilaahi subxaanahu wa tacaala rumeeyey in ay cadaawayaan ay dagaal iyo dhib iyo rafaad ay ku wadaan kamaysan zuulin ayagana haddaba walaalay ka digtoonaaw in aad ka mid noqoto gabdhaha diintooda si fudud ugu baxaya
waxa macno ahaynna ku bedelanaya haddana waxaa la yaab le aad arkaysaa dad ku dhashay diinta islaamka oo magaca soomaalinimadana ku aftirsanaya ayagoo dhib iyo rafaad iyo gaajo aysan u geynin diintooda ku bedelanayo waxaan macno lahayn allah waxaan ka barinayaa subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo kuwa diintoodii ku sugnaada ilaa ay naftooda ay ka timaado ajashoodiina ay ka dhammaato allah waxaan ka rajaynaya subxaanahu wa tacaala inuu na marsiiyo waddada ay mareen dadka diinta u soo rafaaday loo cadaabay loo ciqaabay sida ay u sugmeen inuu ilaahi subxaanahu wa tacaala na sugo in ilaahi subxaanahu wa tacaala ku sugane waa arrin aad iyo aad u muhiim ah waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asigana fahamtiisa ayuu ilaahay in badan wuxuu weydiisanayey inuu ilaahi subxaanahu wa tacaala ku sugo diinta islaamka qalbigiisna iimaanka ku sugo nabiga ducooyinku ku duceyso jir in badan waxaa ka mid ahaa allaahuma yaa muhabbit alquluub habbit qalbii calaa diinik allaahuma yaa musarif alquluub sarif qalbii calaa taacatik اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وأنت البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله انت دوينيا قصدي قابنات أن كشكينيني كودا أدلتي ودن كروشك هلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.